Okay, cool. We're at Ottawa, Canada. First Somali speaking white boy. Yeah. From where? Richie, Ontario, Canada. His name is Yassine Hala. Oh my goodness. كنت برا صوماليا والله مركم waxaan ka arkaynaa meeshan inay tahay inaa luqadeena lagu dhaganaado luqadeena hooyo Soomaa yaasino aad baan jecel Soomaaligayga ayaa ka fiican Ingiriisiga wow wallahi that's unbelievable maaha Soomaaligana ku hadlo walaal waxaad u sheegtaa dadka dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee adduunka meel walba wada fadhiya waxaad u sheegtaa like background kaaga exactly quickly about Somali mu soo dhax koray hay Soomaalida dhaqankooda iyo waxa dhan ma soo baxay moogtay hay Soomaalida waxaan ka bartay waxyaabo badan oo aan cadaan ka tahay moogtay xaggan Carling awogay baa degan kii hooyaday dhalay okay ya isaga laba cisho guriga markii uu hay wuu soo laagay مستحمل يدي قيمها سامي الصومالي تقانين الصومالي الدون كمال قصصنا له فيديو قاعد دوري يبغى شيء يعني اللغة ده هي لاعبنا يدين عناه والله كان شو قال إن أنت كده الصومالي كوا هذا شو مشرتو إنا لله وإنا إليه راجعون الصومالي ده واحد يقول لي واحد قطع واليوم حاي سالم ياسين والله أجمع أمها ستة أنا لو كسر هذا كندا أروى كابتن سيتي أوف كندا أو كسي ولا كسي كسي ولا هذا هنا ماشي اللي هذا ريتشي يا أو ريتشي is definitely represented يا ما هو أمها ستة هاي اليوم لهينا هكذا قرب قبته وشيك please أنت أنا نسيع بحين background كوي again half Canadian half Caribbean Somalian فوشيغو half عدان half مدو وكا Canadian يو Caribbean مركا وكا guys وحبا إذنكم هاي إنا إيميل كفي عن إيميل كفي عن نمبر إيميل كمان سرعة إذنكم واحد دولار نحسن ديك نمبر كوهاويان 613-263-9092 وين ده ما فهمتي إيميل كنا وهاويان إلياس أو ILYAZ05@hotmail.com. There you go. Marka, you know, all the females or Roman in a good doniin iska soo waca. Inamadana dhibaatada iska dhaafa. Ay, all my guys.